ugaaska beelaha deega gobolkan ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble ugaas Doodi wafdi uu hogaaminaya ayaa maanta si weyn waxa loogu soo dhaweeyay degmada Dila ee gobolkan Awdal waxaana ugaaska iyo wafdigu uu hogaaminaya degmadaasi loogu sameeyay martisoor aad u balaaran iyo qada sharaf aad loo soo agaasimay waxaana madashan ka hadlay sheekul beledka magaalada Boorama Sheekh Cabdilaahi Sheekh Cali Jawhar iyo Suldaan Saleebaan Cali Ismaaciil waxayna bulshada reer Dila ugu mahadceliyeen sida weyn oo maanta u soo dhaweeyeen ugaaska beelaha deega gobolkan ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble ugaas Doodi هي قلب فلان هي الهدوء وينيا هنا بنت إنسانة وجيزة بتحي هي فيها معارض وبنك علينا ونحسن وحلاها كعم فلان هي قلب فلان بصوت وو أيضا يقومون كي إلهي الأسلوب السيئي إنه بحي هنا أوصيه إلهي عز هي شرف الدنيا إنه إلهي إيش كوي إنه كيجي من الجوال بعده إلهي نبي يسوي قاسين إلهي وحفر الله سبحانه وتعالى قاسين اللي بدأته هي اللي بتجميع الخيرات فقط القصوى صارايا طريقة المام بوجاس اللي هو قابية يا الله سبحانه وتعالى وقبرنا وجاس Cabdirashiid ugaas Rooble ugaas Doodi oo la hadlayay bulshada ku dhaqan degmada Dila ayaa ku amaanay soo dhaweynta balaaran oo ay u sameeyeen wafdiga uu hogaaminay wuxuuna ka duceeyay madashan aad baan farxad weyn bay tahay maanta inaan maanta aad baan u farxay muslibaatihiin xagga xidhka marka joogtiin waxaan ilaahay inaga baryaa in ilaahay musayniisi adkeeyo oo aad maaragtaan midnimadana aad xoojisaan walaalnimada aad xoojisaan inaad isku tirsataan oo aad wax wada qabsataan ayaa ilaahay inaga baryaa ilaahay farxad inuu sidaa mar walba inoo wada joojiyo ayaan ilaahay ka baryaa dhalinyarada ilaahay tahriibta allah inaga nabadgeliyo ilaahay caafimaad allah ina wada siiyo ilaahay mustaqbalka allah inoo wada hagaajiyo midnimada allah inoo hagaajiyo roob raxmad qaba allah ina siiyo ilaahay inoo barakeeyo Cabdi Fataax Axmed Hadwanaag News magaalada Boorama.